dadkeena waxaan ka maqlaa ma yeedee geerida ilaahay baa qoray waqtigayga dhaafi maayo waxaan idin sheegayaa waxa ka badan geerida uu geystay waxa ka badan 10 jeer waxa ka badan dhibaatada aan xal loo hayn oo kaga tagayo qofka markuu dilaya waa mar waxbad aanu kaga tagin laakiin qaar badan oo ka badbaaday ayaa sababadii wada fadhiyaan ayaa maartay wadnihii dhaawacmay ayay kaliye dhaawacmeen ayaa maskaxdii dhaawacantay marka qofku wuxuu la noolaanayaa xanuun culus oo waliga la nooleeyay yaan la idin ka dhaadhicin geeri kaliya arintu ma geeri ma waxa la filayaa dhibaatada uu ka tagay dadka uu ka tagi doono ee liita ee uu kaga tagay dhibaatadaas daweyntoodu kharashkeedu inaan dawladaha waaweyn xataa bixin kari doonin muddo dheer walaalo marka qof walbo ee maanta jooga anigaasna aan ahaade geeriha ku talagalo haddaanu dhimana dhaawaxa ku talagalo haddaanu dhaawacmina ha ku talagalo qof uu jecel yahay qaraabadiisa geeridiisa iyo magaciisa ku talagalo maxaa marka lagu kala guuleysan karaa dagaalka adag waa dagaalka dawladaha China u dhow ay galeen ee ah inta aanu dadka layn ee u soo shaabixin inaan gaysano waxa laala wixii awood aan leenahay waxa weeye hadduu soo galo xanuunkana soo galo bal waxay qiyaastaan ma sariiraan u haynaa ma dhaqaatiir baan u haynaa ma kalkaaliyaal baan u haynaa ma dawaan u haynaa ma mishiinada neefta guro kiiba qaali yahay baan u haynaa intaba aan idin xaqiijinaya oo ka shaqeynaya midna uma hayno haddaba qofka xanuunsada xagee buu qabanaya marka waxa weeye intaanan dhibaatada meesha ugu dambaysa la gaarin maxaan qaban karnaa wayna gaarnaa haddaba jaadku muxuu ka yahay waxyaalaha aan ka hadli doono jaadku anuu maanta ka hadli maayo caafimaadka guud waxa uu la leeyahay ee horay ula lahaa anuu waxaan ka hadlayaa waxa weeye COVID-19 muxuu qayb ka qaadan karaa jaadkan waxa weeye cunto aan daboolayn aan bac lagu soo xirin aan warshad ka soo bixin aan la soo mayrin aan la soo daweyn oo iyadoo nadiif qofkii bacdi uu ka furanayo ee waxa weeye waxa lagu dad baa gacan ku soo habeeyay gaari baa la soo cararay dad kala taabtay meesha ugu dambaysa aan ka soo qabanno ee lagu iibinayo kolayga la yiraahdo maalin qof baa soo maraya uu iska eegaya uu naqaysanaya gacantu ku taabanaya uu ka tagaya adaa yimid adaa qaatay kii la naqaystay kii hore ee taabtana COVID-19 buu qabay xanuunkan buu qabay coronavirus ku keenay waad la baxday gurigaagii baad la tagtay caruurtaadii yaa ku damanad qaadaya xaaskaaga jecelayd yaa ku damanad qaadanaya walaalaha iyo qaraabadaadii alla dhex fariisatay yaa ku damanad qaadaya waxa weeyaan ibtilo aad ku fidinaysid qoyskaagii dadkaagii saaxiibadaaba la fariisateen mafrish baa fariisatay yaa ku damanad qaadaya mid idinka mid inaanu dushiisa saarnayn xanuunka aan la soo taaban inta gaari taabanaysa inta socod wax ku taabanaysa taabashadu marka waxa la isku raacay inay tahay sidaa xanuunka ee ugu badan mid baa yiri waan iska meeranaa walaalo waxaan ku sheegayaa gacmaha biyaha markii lagu meero sidaad ku cuntay cunto marka dufankii miyay ka baabin kartaa waa maya xanuunkan waxa ka tirtiri kara oo dili kara oo qura waa biyo saabuun ay wadato way marka jaadka ma saabuun baa ku meeraysa kuma meeri kartid naftaada u baq nafta xaaskaaga u baq nafta ubadkaaga u baq nafta maaragtay dalkaaga iyo dadka jecesha u baq maanta ito mas'uuliyadda ugu culus aan kaga bixi karnaa dalka waxa weeye qof kasto naga midi inuu mas'uul noqdo qof kasto naga midi inuu mas'uul noqdo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa uu si toos ah ula hadlay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xukuumadda soo hartay haddii ay yiraahdeen dhaqaalaha naga soo gala canshuur baa naga soo gashay madaxweyne waxa kula hadlaya anugu waxaan ku haystaa laba takhasus oo ay yar tahay qof Soomaaliya ama Somalilander inay haystaan dalka Ireland Dublin baan labada takhasus ka soo qaatay ilaahay ma hada ka gaartay Cabdiraxiim Caabi Faarax ayaa koorsiga iga bixiyay sanaday ugu qaadat mid waxa la dhahaa tropical medicine midna waxa la dhahaa international health labaduba waxay nala soo baray xanuunada lamida COVID-19 ee caalamka ku faafa sidee looga hortagaa sidee gacan looga qabtaa waxa weeye barigan jabhada ahayn barigan aan dibadda mareynay ayaa qorshaha ahaa inaan hay'adaha u shaqeeyo caalamka aawadood u bartay
inaan maanta dalkayga uga faa'iideey way qaado talada qoxa kula hadlaya nin waayeela oo dawladii Maxamed Siyaad Barre ahaa wasiir ku xigeenka u qaabilsanaa xanuunada faafa sida viruskan oo kale أنا مسؤول كأوجينا من هالجيسة إلى كسمايو حمناذا فاف أنيقها خبرة أنت اللي يقول آمن كرويد مدحوينا هدانك ويرهضو شاتك كوركيس وسارين هالشربس ميادم كن حكرين قفك أد أطهي آباء قفك أد أطهي ولال ياسكو حقيقي إنانو أديو كوسو قلين مركزم سان أنوجو أدوجو الليس كجيريدن كوتشرنا كوتلاقى هدان كبد بعدنا الليس كداو عن كوتشرنا هدان كبد بعدنا قرابة إن جيري ينول كوتشرته مدحوي وإن المسؤولين علوسارنا مدحوين ميان وحن لجنة هاي إن جدّجا وعي جلينتو أي جمعها ميرا سنك حرتا وحن يلا أي كبقين أما كحشودين حرمة شات كلها هاي إن أي كدران وعي جلينت هذا شوشين كريم مدحوين وحن كعد سنة وعي جلينت كدر وعي جلينت كدر قفكم يسوي هيستلو لكن قفكم حيستلا وحق جلافنا يا قف البابا ومدي كلو قلافنيو دعاقالها نغا سو غلا مدحوينه maxaa diidaya mushkiladani maaha mushkilo waaraysa waa mushkilo 40 casho gudahood laga yaabo dabayshaas inay na dhaafto sidii dalal kale u dhaafayso maaha mushkilo waliga jooji ah waa 40 casho 40 ka casho waan xambaari karnaa intaas uu saameyn karo dhaqaalaha wadaadada ganacsatada madaxweyne shiri sakadii soonkii ayaa taagan محدداً إن لك قاعد العقد محدداً العقد إن راشين لقصة قدم إلا ريمو يصيح من دونانه إن أنا هيستنا كيد كني بلوه دل كان كف الله محدداً أنت هنا شل حسن سكاد العقد هذا إن لقى جارسيو راشين يوح لوقي قيبي ضدك لوقي أبيه ومداته نعيب كومله يا وحن ما أنت تكوش جيا إن يدقون نمتهاي شخصي كست أو صومالي اللي نشوفه ما أنت تو إن أو سياسة معارض نما الرما كلايو دحدين أي كفرمان ما أنت دلكو دجال بوكو شرا دجال كان أفافاف كيسيبان مرينا متكون نعبية متكو شعل بوحن كلتلين لها يا وأنا نقول جوريو وحن كلتلين لها إن لقوا جد بفيله أديقونا وأنا دقادة ملحوين دتك جوية دتك دوانكو أركيدون تد حبالة فربضن إلهي نقوم مكانه هدي تلادو نجحوماته ودتكاجي madaxweyne isweydii u yar baahda caafimaadka maxaa haysan bishinka neefta imisa haysan leh markuu soo rito oo uu maalin walba soo daadinayo 100 qof ee neef u baahan xageed ka keenaysa madaxweyne dagaalkaagu waa inta hore madaxweyne xasan Suleymaan Haruun xasan Galeyd wararka Hargeysa sifaha laba ruux sideena sidaba isu jecel sideena saacadna kala maarmi sideena sinaba uma kala